madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho ku qaabilay safiirada dalalkooda ay joogaan ciidamada ka joogaan Soomaaliya waxaana laga hadlay howlgallo ballaaran oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab sidii loo qaadi lahaa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isugu yeeray safiirada dalalkooda ay ku jiraan ciidamada AMISOM iyo saraakiishooda waxa uu kala hadlay howlgalka AMISOM iyo in ay muhiim tahay in waqtigan la dardargeliyo howlgallada kooxaha nabadiidka ka dhanka ah. madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay AMISOM iyo madaxdooda sida ciidamada Soomaaliyeed ay gacan u siiyeen iyo dadka Soomaaliyeedba, laakiin waxa uu xusay in laga maarmaan ay tahay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya loo diyaariyo dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin sida qalabka iyo waxyaabaha kale ee la xiriira awoodooda. AMISOMna looga baahan yahay in gacan ay ka geystaan dhismaha ciidamada Soomaaliyeed ee marka ugu dambeysa AMISOM kala wareegi doona amniga guud ee wadanka. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dalka gobollo badan oo ka tirsan ay ka jiraan abaaro xoog leh, sidaa darteedna ay waajib tahay in si nabad ah loo gaarsiiyo dadka gurmadka ay u baahan yihiin iyadoo ay iska kaashanayaan dowladda, ciidamada qalabka sida iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM oo wada jira. kulanka waxaa joogay oo madaxweynaha ku helinayay agaasimaha guud ee madaxtooyada, wasiirka difaaca ee Soomaaliya, safiirka Soomaaliya ee Kenya oo fadhiya iyo howlwadeeno kale, waxaana la isku afgartay ugu dambeyn in si degdeg ah loo dardargeliyo howlgallada lagu soo afjarayo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab.